السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديالي بالأهانتين بميل كستود عالمka inaga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka saadaasha oo had iyo jeer aan uga hadalno xaaladda siyaasadda dalka Soomaaliya iyo weliba qeybaha kale ee markaasi arrimaha bulshada ah. Dabcan maanta waxaa barnaamijka iigu marti ah aqoon-yahan ahna ganacsade Cabdullaahi Mahdi oo isagu hadduu eeba yiraahdo aan barnaamijkan kusoo casuumay sidoo kalena doonaya inuu ila falanqeeyo. Cabdullaahi marka ugu horeysa barnaamijka saadaasha kusoo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عبد الرزاق قولي walaal waa mahadsan tahay barnaamijka igu casuuntay waana dhawahay walaal waa tahay adigoo aad u mahadsan Cabdullaahi sidaad ogsoontahay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya markaan heerka ay marayso runtii nin wax badan kala socda ayaa tahay markii aad fiiriso marka inta aanan su'aalihii guud oo aan ugu talagalay barnaamijka aanan ku weydiin bal si guud inoogu qeex sidee kula tahay xaaladda siyaasadeed qaabkaysa ku socotaa baad isleedahay adigu عبد الرزاق سولو waa mahadsan tahay walaal mar labaad siyaasadda Soomaaliya kulley marxalado kala duwan ayay soo martay sidaan wada ogsoonahay xilligii ku beelgaarka oo ka soo bilowday carta ayuu shirka ugu horeeyay dawladda carta aad ay umadu maxalada u soo dhaweysay aad ayaanan ugu haynay wani badan laakiin waxa iska yimid caqabado oo marka hogaami kooxyadii iyo wixii dawladdii way shaqeyn weysay sidii la rabay way noqon weysay taa waxaa daba yeelay tii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Alayhi Raxma iyadana sidoo kale caqabado iyo culeysyo markaa jiray ayaa iyadana ka hor yimid laakiin mid walba dawlad walba markaa samaysay oo abuurmaysay waxay noo dhaweynaysay marxaladda dawladnimo ayaa maalinba maalinta kasii horeysa ayaan ku xigta ayaan usii dhawaanaynay kadib waxaa timid dawladdii Sheekh Shariif iyaduna waxay la kulantay cadaadis iyo culeys badan oo gudaha ah iyo dhibaatooyin badan oo jiray haba ugu darnaato xaaladii markaas iyadoo maxaakiimtii iyo raggii kaloo ka go'ay oo dhalinyarta ilaa hadda mushkiladda taagan ah taa iyadana waan ogeyn dhibaato kale ayay la kulantay marka haddaan meeshaas aan ka ambaqaadno waagaas markaas xilligaas ayaa waxaa noo bilowday waxa la yidhaahdo gurubaysi dawladdii Sheekh Shariif waxaa jiray niman la dhihi jiray ala sheekh oo markaas ahay rag asaga ku agdhawaay oo dawladdii talinteedii iyo arrimihii dawladda faragelin weyn ku hayay oo rag micnaha markaas loo aaneynayay inay micnaha ay dawladda ay leeyihiin dad oo micnaha dadka xisbigii dawladda ama ka talinayay ayay ahaayeen adii culeyskeeda lahayd iyo dhibaatadeeda marxalad ay u dhiibtay kadib dawladdii ku meelgaarka halkaas ay noogu dhammaatay tii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa timid oo iyadana runtii aan u haynay ummadda u haysay maxaa la yidhahdaa kalsooni iyo wax badan maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ahaa nin aan waddanka ka bixin oo aqoon-yahana waddanka gudihiisana in badan joogay marka waxaa la islahay waa right person ninkii ugu habboonaay oo Soomaaliya maanta samata bixin lahay rajadaas ayaan qabnay iyaduna alxamdulillah meel unbay wax soo gaarsiisay laakiin diiladii iyo rajadii ummadda Soomaaliyeed ay ka qabtay iyo malihii aan malaysanayna maysan noqon waxaa meesha ka soo hoosbaxay rag la dhihi jiray daamul jadiid ay haddaanan qaldanayn sidaas ayay ahaydaan filayaa daamul jadiid iyaguna micnaha waxay samaynayeen waxyaabo badan oo aysan ummaddu markaa aysan aad u jeclaysanayn kadib doorashadii kala dhacday dawladdan cusub oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo hadda imika joogto 8 February noo dhalatay ayaa timid madaxweyne cabdullaahi oo hore usoo noqday ra'iisul wasaare dawladdii Shariif Sheekh Axmed oo ummadduna markaas ay kasbasho badan oo nin aad loo jeclaay ahay oo ummadduna aad u jecleed tii marka waxay abuurtay rajo fiican maadaama nin hore oo usoo shaqeeyey ummadduna aad u jecleed ahay inuu wax badan ka bedeli karo ayaan iyadana ummaddu istustay oo la islahay waa right person ninka ugu habboonay maxaa dhacday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sameeyey kow meelihii uu ka qalday waa isla meeshii xasan mare kale ayuu ka bilaabay xasan sheekh maxamed markuu yimid kow wuxuu bedelay saraakiishii ciidamada bilxaqiiqa aniga shakhsiyan aadaan uga xumaaday nafsiyanteeda iyo in badanoo Soomaalida ka mid ah sababtoo in hoggaanka ciidanka la taabto siyaasad xumada ayay ka mid tahay Soomaalida markay timaado dawlad cusub nin walba dad ayuu wataa dadkaas uu wato ayuu rabaa inuu meeshii geeyo ama xisaabtiisii ama ragga asiga la shaqeynayay ayay ahayn haddaan xasuusano rag waxaa jiray aad u fiican saraakiishaas allah raxma waxaa ka mid ahay diin hadda uu nool yahay ninkii ahay dhega badan alayhi raxma oo ahay abaanduuliya ciidamada iyo diin ayaa hal maalin shaqada laga wada xeeriyey
waxaa markaas kaloo mudnaay oo isagana shaqada ku jiray Eric oo ahay gudoomiye gobolkan Jecla markaas in Nabadgudda fiqina wuxuu ahay amniga wuxuu ahay asaguna dhinaca nisa ayuu ahay adi waxa dhacday asaab ugu dambeeyay Jeclahay oo xoogaa cabaar shaqeeyay fiqi laakiin ragii kale iyo ayaa shaqada laga kala qaaday saraakiil cusub la magacaabay raggaasna xaalad adag ku soo shaqeeyeen marxalad adag ku soo shaqeeyeen daga badan runtii waxaan isleeyahay sarkaal Allah raxmo waa tahay injineer Cabdullaahi haddii aan hadalka ka dhex galo maxay tahay caqabad walba ee hor timaada dawladdii markaasi curato ama ha ahaato mid markaasi ku meel gaar ah ama ha ahaato mid markaasi buuxdo oo dawlad federalism oo markaasi kombilood oo labadii hadda ay ku xilalka kula kala wareegeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh maxay tahay caqabada Soomaalida haysata ama siyaasiyiinta haysata ee had iyo jaraale curyaamiye siyaasadda Soomaalida taas waa tan hadda ka dhawaajinayay laga soo bilaabo alla sheekh dam jadiid iyo kooxdan cusub hadda 8 February oo hadda groupka Farmaajo dawladdu imaanaysa waxa jira rag ayaa waxay u ahaayeen sal ayaa u ahay maxal yiraahdaa ayaa saldhig u ahay ama on garab iyo xisaab ama saaxiibo ama dadkii groupkii siyaasadda ninkan ku gacan siinay sidoo doonta baa noqoto marka raggaas ayaa dawladdu waxay ku sameynayaan interference ah madaxweynuhu uma madax banaanaan inuu shaqadiisa qabsado madaxweynuhu ma helay red person ama dadkii ugu habboon inuu shaqooyinkaas u dhiibto taas ayaa waxay kalifaysaa in madaxweynihii uusan behelinba inuu ka baxo maxal yiraahdaa meeshaas halkaas ay raggaas ay ku oteen marka asagaas marka raggaas ayuunba waxay iyaguna mar walba u soo tabinayaan dhinaca positive-ka wanaaggan bay u soo sheegayaan madaxweyne shaqo fiican baa socota madaxweyne sidaan bay wax marayaan marka madaxweynuhu marka waxa cilada keenay waxay tahay ma xuma madaxdu ma xuma madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweynaha wanaagsan ummaddu jeceshahay kalsooni badan loo qabo laakiin waxa la isleeyahay teamka oo ku harareysan ragga oo dhinacaha ka fadhiya ayaa waxa la kara la taliyaal sheekh ugu habboonay ama teamkii la shaqeyn lahay ayuusan haysan mar walbana waxa siyaasadda Soomaaliya fashilinaya waxay tahay waa ragga madaxda ku harareysan aniga saasaan oran lahay kulli waa tahay haddii aan pointka hadda ugu dambeysay aad ka hadlaysa laftirkiisa aan kugu soo celiyo dawladdii hadda tan jirta ka horeysay ee Xasan Sheekh Maxamuud dabcan waxaa loo aaneyn jiray isla markaasna dadku ay oran jireen waa dawlad markaasi group yar ama xisbi yar ama isbahaysi yar oo lagu magacaabo daamajadiid waa siday hadalka u dhigayaan markaasi ayagu ayaa ku macnaha halkaasi isugu baaqda oo markaasi siyaasadda Soomaaliya iyo xeendabka maxaan ku raadayay markaasi dalka uu ku jiro halka ka hagta dad yow waxaa jiri jiray markaasi ayagu lagu magacaabo in Faarax Cabduqaadir uu kamid yahay iyo Mahad Salaad iyo rag fara badan oo markaasi Xasan Sheekh aad ugu dhawaay Cabdikariim Guuleed xitaa laftirkiisu uu kamid ahaa haddii la yiraahdo madaxweynihii yimaadaba dabcan la taliyaasha ama dadka markaasi aadka ayagu ugu dhow oo markaasi ama waaxdii markaasi sirdoonka ha noqoto ama fulinta ha noqoto ama wasaaradda arrimaha gudaha ha noqoto ama taliyaashii ciidanka ha noqoto ama la taliyaashii qaaska ha noqoto haddii mar walbaba dadka markaas aadka ugu soo dhawaada madaxweynaha eed loo jeediyo ama qaab qabiil oo markaasi dabcan ayada laftirkeedu wax saameynteeda wadata lagu fiiriyo soo lama dhihi karo waa arrin ayada laftirkeeda ah dhib leh waa sidaa ka dhawaajisay horta Xasan Sheekh caqabadii ugu weyneed oo qabsatay waxay ahayd ragga saaxiibadiis ahay goolii wasiiradu hore u dhisay ayay ku jireen ragga hadda aan magacawday tii dambe ku jireen tudhaxo waxaa jirta Cabduqaadir Faarax Cabduqaadir oo laga reebay oo si dirqee looga reebay oo ilaa la marsiin waayay xaqiiqo waxaan isweydiin jiray Faarax iyo Xasan haddii saaxiibo yihiin ay saaxiibo dhow yihiin oo wax la qabtay way oo Faarax xataa uga dhigan way la taliya dhinac fadhiya intii ummadda ku qasbay lahay Faaraxna wuxuu ahaa nin aad influence badan ku lahay siyaasadda dawladda marse taas ma aysan dhicin oo Xasan mar walba raggii saaxiibadii ahay ayuu ku adkeysanay inay la shaqeeyaan ilaa iyo dhamaadkii wali isla dhameysteen laakiin waxa ka weyn masabka ummadda ka weyn in shakhsi iyo shakhsiyaad ummadda loo lugooy marnaba ma habboona marka taas hadda waa waqtigeedu u dhamaaday waxna wanaagsanna way qabteen intay qaban karayaan laakiin maalin walba waxa nasiib darradu tahay inaan dawlad walba ee waqtigeedu u dhamaado inaan iraahno oon waa curdun bay ahayd barashaan ku jirnaa haddaan socod baradnahay marka waxaa wanaagsanaa leh dawlad walba inay ka barato dawladihii hore maxaa qaldamay laakiin maalin walba sida hadda noo muuqata inaan weji cusub unbaa maalin walba beej cusub aan furnaa hadday hadalka anagoo ku wataan rabi inaan kuu dhameeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi markuu yimid kow asaguna wuxuu sameeyay afartii sarkaal ugu sareysay ayuu hal maalin waliba hal maalin ay shaqada laga ceeriyay
hadda aan filayno saacaddan la taagan yahay boosaska qaarkood 3 boos oo ka mid ah inay banaantaan u malaynaya oo taliyii waxaa la bedelay keliya oo ciidamada unbaa la bedelay laakiin 3 boos oo kale weli way bannaan tahay marka qaladaadka kow oo lagu dhacay waxaa ka mid ahayd madaxweynuhu inuu saraakiisha 4 sarkaal hal maalin shaqada laga ceeriyo okay wayba dhacday waa dhibaatada ugu horeysay oo dowladda caqabadii lagu hala gashay ahayd kasoo gudub gudoomiyihii gobolka madaale ayaa markaa joogay sheekh yuusuf asagana muddo lama siinin sida ugu dhaqsiya badan shaqada laga qaaday wayba dhacdayba haddii laga qaaday sheekh yuusuf taabidaa yimid taabidna wuu dadaalaya laakiin maxaa dhacay taabid wuxuu sameeyey inuu isna hal mar hore umaysan dhicin weli taariikhda soomaaliya saan filayo in gudoomiye 18 degmo hal maalin shaqada laga ceeriyo iyadana ayaan daray ahayd markaasa weliba waxaa la keenay wejiyo cusub oonan waxba kala ogeyn oo qaarkood diaspora yihiin oosan waddankaba ku cusub yahay gudoomiyaasha degmada soo shaqeeyay sidii gabadha deeqo oo warta nabadda dad waxaa jira runtii wax badan soo qabtay marka dhibaatadu waxay tahay gudoomiye degmo waddan xaaladaas adag ku jira in hal maalin gudoomiyihii gobolka la ceeriyo gudoomiyihii gobolku asaguna cusubna uu keeno 18 gudoomiye degmo micnaha yani waddanka xaaladda aan ku jirno anagoo og amni gudoomiyaasha degmadu waa dad deegaankay ahaayeen oo xaafadahaas dhinaca ka deganaay oo axsaab saaxiibo warar badan information badan heli kara marka runtii farmaajo ayagaa jeclaystaan isleeyahay inay waxaanu dhamaan dhib dhacaan laakiin haddii aan kaa dhex galo dowlad walba oo markaasi imaata ama mid ku meel gaar ha noqoto ama mid dhamaystiran ha noqoto dabcan waxaa lagu yaqaanay caalamka intiisa kale iyo weliba laftirkeeda Soomaaliya isbedel siyaasadeed markuu yimaado kursi walba madaxweynaha ka bilaw prime ministerka ku xiga oo ra'iisul wasaaraha ah xukuumadda wasiirada qaybo kamid ah baarlamaanka xitaa waxaa laga yaabaa gudoomiyaha baarlamaanku inuu dhacdo inuu bedel noqdo isbedeladaas ayaa saameeyay oo maxaan ku yiraahdaa ama gudoomiye gobol ha noqdo ama taliye ciidan ha noqdo isbedeladaas ayaa saameeyay ay qayb kaga tahay isbedeladii dowladda Soomaaliya iyo maxaan ku yiraahdaa dowladihii la dhisi jiray maaragtay sidoo kale ku ahaa soo lama dhihi karo maxay tahay saameynta gaarka ama farta gaarka ah oo loogu leexinayo dowladdan hadda ugu dambeysay mudane farmaajo horta waxaa fiican in shaqada in la kala wareejiyo in xilka la kala wareejiyo si tartiib iyo nidaam ah laakiin markii la ceebiyo maxaa ciidamada oo ku xigeenkiisina laga qaado degmada la qaado taliyii degmada gudoomiyihii degmada wax walba marka waxaa dhumaya procedure-kii hore u socdaa dhimaya ilaa in caalamka ay hal mar dhacayso in dowladdu ilaa iyo bitoni ilaa iyo madaxa u sare in hal mar isbedelayo ilaa ma ahan wuxuu waxaa fiican in waqti qaadato yani tartiib marxaladba marxalada ku dhiibto taliyaha ciidanka maanta aad dirtid dhowr bil kadib la diro maxaa la taliyaha kale in la arko horta isbedelka dhici kara iyo sida ay wax isku bedeli karaan laakiin in hal maalin 4 sarkaal la ceeriyo bil xaqiiqo oo ku xigeenaduna ma inay raacaan aan filayo waa dhibaato maantana tii laga digayo waa hadda 9 bilood maanta dowladdu ay galeysaan jeclahay ayay hadda fiir 3 sarkaal dib loo ceeriyay marka qofka aqoon-yahanka Soomaalida dhibka jir wuxuu yahay ninka yaa ku fiican ma dhahayno yaa ku haboon ma dhahayno waxyaaba aadka ugu calool xumada badna waxa kamid ah wasiirka gaashaandhiga wuxuu ahay diini 4.5 dhibka uu leeyahay kamid tahay diini sarkaal ka mudan oo Soomaali oo xagga ciidamada inuu jiro u maleyn maayo maxaa dhacday diini qabiil ahaan wax ku ay 4.5 kuma uusan jirin wiil yar oo dhalinyaro ah oo Mareykan ka yimid oo weligiisba xataa askari iyo meel aan ay joogaan xataa aan ba arag macquul ay tahay xataa dibo aan soo marin ayaa laga dhigay wasiirka gaashaandhiga ninkii professionalkana qabiil ahaan maadaama 4.5 kan uu dhib yahay waa laga qaaday maxay ahayd marka in la sameeyo diini inuu sii joogo oo wiilka yar gacan siiyo oo la shaqeeyo oo wasaaradii uu ku sii nagaaday ayay ahayd marka dhibaatada dhacaya ka mid tahay fiir wasiir gaashaandhig oo professional inta laga qaado la keeno mid qabiil lagu keeno mid aan waxba aqoon oo xataa weligiisba xataa aan meel askari joogto aan arag marka dhibaatooyinka dhacaya ka mid tahay oo qabaa'ilka dhibka noo geysanaya marka waxaa habboon in professionalka dadka ah odayaasha cuqaasha iyo dadka waxgaradka ah inay dowladdu soo dhawaysato oo dadkan waxa dowladdan muuqata kuwii hore xataa xasan waxa la dhihi karaa wuxuu xaqaldo laakiin teamkiisu waxay doonaan ha ahaadaan team yara adag oo xoogaa ayay ahaayeen laakiin teamkan hadda muuqdo waa team niman dhalinyar u badan oo fudeed badan baa iska jira marka madaxweynuhu nin xun ma ahan laakiin inuu samaysto team adag oo la taliyaal ayaan dhihi lahay waa gartay haddii aan kaa dhex galo dowladdan dabcan markii aan soo qaato aragtida dadweynaha Soomaaliyeed waxay ku amaanaan dowladdan hadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay tahay dowladda kaliya ah dowlad shacab isla markaasna u dhuunduleesha
inay talooyin ka qaadato ama ha noqoto madaxdii hore ee dalka soo martay ama ha noqoto aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed ama ha noqoto odayaashii dhaqanka marka qodobkaas aad leedahay xoogaa waxaad moodaa inay fududahay soo kama hafno oo dowladani wax badan ugama bedelna kuwii hore oo lama dhihi karo rabitaan shacab iyo maxaan ku yiraahdaay iyo siyaasad markaasi inta badan ay ugu tala galaan prime ministerka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Khayre iyo madaxweynuhuba waa arrin macnaha markaasi inta badan ay ka fiirsi iyo maxaan ku yiraahdaay iyo ay u sameeyaan oo ay ula hortagaan siyaasiyiintii hore iyo soo taa lagu amaani karo wallahi ani kulay lama ahan horta wixii afka laga sheegayo afka ay qulubtu inay isla hadaan ayaa wanaagsan dawladdu afka badan bay ka sheegaysaa habeen dhawada ugu dambeysay malaaqa xamri xamardaye ayaa hadlayay malaaqa wuxuu afkiisa ka cadeeyay oo sheegay inaysan access u lahayn inay dawladdii madaxweynaha u tagaan inay dawladdii arki kareenin in la leeyahay ma waxa tahay xildhibaan mise wasiir banaanka markay dawladdu timaado oo ra'iisul wasaare Khayre qudhiis uu dadaalaya dawladdu way dadaalaysaa laakiin waxa iska jirta un farsamo xumo iska jirta afka markii banaanka la joogo dawladdu waa leedahay dawlad shacbiga dhex fariistaan shacbiga loo sheego laakiin shacbigu mar walba waa la use gareeyaa ilaa xilli kasta oo Soomaaliya soo joognay shacbiga waxa loo sheegayo iyo waxa dhabka ah isma lahan marka waa inay dawladdu yeelataa yani siyaasad cad oo ah horta dawladda xagee loo soo mari karaa dawladdu iyo dadku xagee isku arki karayaan laakiin haddii madaxtooyadii albaabka xiran yahay ninka odayga ahay oo macaaqilka ama culimada ahay uusan arki karin uusan taladii iyo wixii uu hayay uusan geen karin banaankana laga leeyahay dawladdu waa dawlad shacab marka lama inay dawladdu dawlad shacab tahay afka waa laga leeyahay laakiin ficil ahaan uma ahanaan isleeyahay waata haddii aan adiga kuu soo laabto dhaliilaha dabcan aad ka tabanayso ama aad markaasi aad aragto isleedahay waa dulduleel waaba garanay maxaad ku amaanaysaa adigu Cabdullaahi Mahdi ahaan maadaama nin siyaasadda Soomaaliya u dhoon duleelo aad tahay isla markaasna falanqeeya sidoo kalena wax badan kala socda dawladihii dalka soo maray iyo tan hadda haatan ugu dambeysaba maxaad ku amaani kartaa adigu dawladdan hadda jirta oo aad isleedahay way ku wanaagsan tahay markii laga tago dhaliisha iyo waxyaabaha dabcan dadku ay arkaan ama adiguba aad aragto horta dhaliil anaga hadda xumaan aan dawladdu u qabno oo leenahay dawladdu way xun tahay ma ahan dhaliishu sideedaba inay wax saxdo un baan isleenahay dawladduna ay qaadato dawladduna aysan noqon mid dhaliisha ka cararta mucaaradka laftirkiisu wuxuu u joogaa sidiisaba dadka wax mucaarada aniga hadda mucaarad maba ahiba mucaaradku waxay yihiin inay wax saxaan laftirkooda haddii laakiin aysan ujeedo kala damacsanayn mucaaradka in loo fahmo in qofku kuu sheego waad qaladay intaad qaladay qaladkiina la saxaa horta wanaagsan laakiin mucaaradka loo arko qudhoodu ma garan karo horta wixii ka dambeeya waana iska ujeedo badan arrimaha Soomaaliya markaas waxay aaminsan yihiin dad badan sida hore ugu soo jiray oo ah dabeecad Soomaaliya oo waxaa jirta cadkaana ku cunay ama ku ciiday ah marka taasna waa nasiib darro horta dawladda lala shaqeeyo way mudan tahay dawladduna ay siyaasiyiintii hore iyo dadka waxgaradkana ay jaanis siiso dawladda ay ka qayb geliyaan la tashi ay la sameeyaan dawladdu wanaag badan way leedahay dawladdu ilaa hadda waxyaabaha la dhihi karo way la dagaashay maalmihii hore siduu noo sheegayay wasiir Bayle oo dhihi karo waa macnaha maanta ugu waaya aragsan ragga maanta wasaaradaha ka haya oo dawladdii hore la soo shaqeeyay oo nin runtii macquul ah qiyaas ahaan si aniga ka aaminsanahay maalmihii hore wuxuu dadka tusayay wax transparency accountability ah in isla xisaabtan uu jiro inay dawladdu ay samaysay guulo xagga dhaqaalaha ah dawladdu hore si dadku aan aaminsanahay xogaa dhinaca corruptionka inkastoo corruptionku uusan wada dhamaan karin oo corruptionku iska soconayo oo shafqad duleelis iyo siyaabo kale wax lagu kala cunayo dhinacaas xogaa inay la diriirtay ayay muujinayaan sida ayaga noo sheegeen laakiin waan uga fadhinaa wasiir Bayle inuu dadka muujinayaan mase way tahayo runtii qaybtii markaasi ayadu qaabilsaneyd xagga xisaabaadka iyo wasiirkii dhaqaalaha iyo amniga kale iyo sidoo kale maaliyadda ama bangiga kale iyo xitaa prime ministerka laftirkiisa oo asagu laftirkiisa xisaabaadkiisa iyo maxaan ku raad adigu ma sidii sheegeen ma leedahay mase wax waadix ah baanu aragnaayo laftirkeenu aanu ka aragno maxaan ku raahdaa meediyaha iyo shaqooyinkooda bal arrinkaa waadax iga dhig runtii kulli hadda ma dhihi karno corruption horta zero corruption ma dhici karo way adag tahay laakiin kulli maalmihii hore wax fiican baa naloo sheegay hadda waxaan arkay warqado la soo qoray beelal waaweyn oo xataa wasiirka maaliyadda laftirkiisa la leeyahay lacago badan oo expand gareeyay oo isticmaalay wasiirka maaliyadda laftirkiisa aan arkayay warqado meelaha la wado horta haddana waxaa sida la dareemayo dhaqaale xumo inay iska jirto culays dhaqaale jiro sida la sheegay mushaaraadka xoogaa culays ka jiro maalmihii horena dawladdu ay xoogaa ay muujinaysay inay mushaaraadka iyo baahida ay daboosho laakiin dawladda laftirkeeda caqabado badan oo siyaasadeed lagu hadla gashay
arrimihii isqabsiga carabta ayaa dhibaato u keenay oo dhaqaali badan ay filayso loo ballan qaaday laftirkeedu maysan helin oo waxaa caqabad weyn ku noqotay isqabsigii oo arrimihii khaliijka dowladda laftirkeeda damage ayuu u geystay xagga gudaha iyo xagga dibadda oo dhaqaalo badan ay ka sugaysay dhinaca carabta laftirkeeda maysan helin waa gartay adigoo aad u mahadsan waxaanu ognahay markii madax loo soo magacaabo dowlad haykalka dowladeed iyo hanaanka markaasi qarannimona aanu ognahay effectivega uu leeyahay ama markaasi saamaynta uu ku yeelanayo qof walba oo xilka intaa la eg loo soo magacaabo ama kursigii ummadii Soomaaliyeed oo ka turjumaya masiirkii shacbigii Soomaaliyeed markii loo soo fadhiisiyo horta runtii dhibaato aad u fara badan buu kala kulmaya waxaan rabaa inaan marka aan dabcan adiga aan ku weydiiyo Cabdullaahi Mahdi ahaan shakhsiyan shaqada ama habacsanaanta ama xitaa laftirkeeda musuqmaasuqan laftirkeeda aad hadda adigu aad bayaray sida aad tilmaamaysid haddii shacbigii iyo maxaan ku yiraahdaa wasiiradii iyo baarlamankii iyo gudoomiyihii baarlamaankii iyo dhammaan qaybihii kale ee markaasi ay qusaysay dawladdu haddaysan ka qayb qaadan inay si hufan ugala shaqeeyaan madaxda si hufan ay u ilaaliyaan nidaamkii constitutionkii iyo dastuurkii iyo nidaamkii waddanka u yaalay so ayada laftirkeedu inta ka shaqeysa dawladda dablaha ugu yar ee markaasi ciidanka aba ka soo bilaaw iyo meesha la wada yeelanayo Soomahan mase adigu dad gaar ah rabtaa inaad dusha u saarto may horta waa runta Cabdirasaaq waa mahadsan tahay waa su'aal meesha ku jirta horta qofna lama eedo waxaan waxay fiican tahay horta waxaan wax naga dhaxeeya inaan u fahanno inaan dawladdan wada leenahay dawladdan u fahanto dawladda in ay shacbigu leeyahay shacbiguna kula xisaabtamayo saad ka dhawaajisay baarlamaanka way leeyihiin qaybooyin oo u xil saaran waxaa jira adduunka waxa ka jira wax la yiraahdo oo dawladda aan shaqo ku lahayn oo corruption dad la dagaalo oo dhinacaas ku shaqo leh ayaa jira dhinaca laaluushka in la abuuro ay loo baahan yahay horta guddiyo noocaasa in la abuuro hay'ad madax bannaan oo baari karta meel walba gacanta gelin karta waxaan dareemi karnaa in dhaqaalo badan la isticmaalo ay dawladdu si qaldan iyo si saxanba loo isticmaalo waxaa dhici karaysa in hadda marka runta laga hadlo hadda hoteelada waaweyn oo kale waxaa dhici karta ama qarashaad lagu bixiyo siyaasad politika Soomaaliyeed dabeecad wax jira weeye oo la ogsoon yahay marka mukarrama la seexina waxa la seexinayaa jaziira hoteelada waaweyn dad baa jiifa oo dawladana ka mid ahayn oo dawladdu ama dawlad ku nool weligood iska ay ama ku agnolay qarashaad waxa iska jira tar badan oo maanta baahi kala dabooli kari lahay aniga waxaan aaminsanahay hoteelada waaweyn lacagaha lagu bixiyo qarashaadka in wasaaradda maaliyadda ka baxdo oo indirect loo bixiyo lacagaha lagu bixiyo siyaasad politiko iyo dadka lagu aamusiyo inaan dawladda caaradin dawladda laftirkeedu ay kasbanayso inay waxyaabo ay ku guuleysatay un hadda isleeyahay dhinaca media way jiraan shakhsiyaad yar oo qaylqayl oo dawladda mucaarada laakiin inta badan dadkii waaweynay sida Amin Camar oo kale lama arag waayahan run iyo been waxay ahaataba Amin Camar waa su'aalaha la isweydiiyay ka mid tahay maxaa loo waayay dadkii horta way fiican in laga aamuso waqti siiyo laakiin maanta aan su'aal ku soo qaato dul ninka la yiraahdo dul yaraan jeclahay ayaa runtii waxaan u arkaa wariye maanta dhexdhexaad ma ahan an waa tahay waxaan rabaa inaan dabcan ka dhex galo arrintaas ayada ah Cabdullaahi siyaasaddu aad bay u dhib badan tahay waxaan ogsoonahay in aysan ahayn kaliya arrimaha markaasi horumarinta dawladda oo kale ama markaasi xukuumadii oo kale amniga laftirkiisu waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay in wax la iska weydiiyo markan aan sida kale bal dhinaca kale aan u soo jeesto inta badan waxaa dhacayay oo maalmahan dambe iska daba dhacayay qaraxyo runtii saameyn aad u xun ku yeeshay ummadda Soomaaliyeed kumana signayn dawladdan hadda jirta ee tii ka horreyso Xasan Sheekh iyo tii Sheekh Shariif iyo dhammaan maamuladii ama dawladihii kasii horreeyo dhanba arrintaasi dhibkaasi wuu taagnaa inta badan markaasi madaxda sirdoonka ama markaasi ciidanka markaasi u qaabilsan amniga ama wasiirka gaashaandhigoo kaleba ha noqdaan waxay yiraahdaan waxaanu rabnaa ama aanu ku guda jirnaa baaris wixii dhacay dib ayaanu idinkaga soo sheegaynaa sida badanna lama arko oo dabcan uma soo muuqato oo qaabka ay u ballan qaadaan dhammaan dawladihiina soo maray iyo tamba wax ribood oo dib ay uga soo celiyaan ma jirto arrintaas ayada ah waa sidee baad isleedahay maxayse tahay laga fili karaase shacbiga Soomaaliyeed haddii loo sheego markaasi mas'uuliyiintii dawladda maamuleysay ama markaasi arrintaas hay'adii markaasi qusaysay arrintaas ayada hadday ballan qaado inay arrintaasi ka soo gudbin doonto wixii natiijo ah oo ay ka soo hesho baaritaankaas haddaysan dib u soo gudbin
horta baaritaan uu soo gudbi karo oo waxaan horta waxa la soo abaabulay wax soo sameeyay qofkii naftiis hore ayaa horta ayaa barnaamijkan kadibna video ayaa la keenaa raggii soo diray oo dhan saas hebel fuliyay hebelana qorshahaas ninkii ku dhintay keenaba laakiin waxaan sameyn karnaa aan isleenahay dawlad walba ama culays walba ama fashilka iimaani waxay horta xagga amniga ayaa horta ilaa hadda noo deganay ilaa 7 sano ku meel gaarka marka laga soo gudbo ilaa dawladahan hadda rasmiga ah oo labadan dawlad hadda u dambeeyay amniga ay dhibaato ka tahay amniga dhibaato uga dhacday waay amniga waxa dhibaato uga dhacday ma jiraan wax professional saraakiil ah oo shaqada loo dhiibayo ma jiro kii shaqada hayay oo markaa la qabsaday oo markaa lislee hadda shaqada la qabsadana dawlad cusub oo qaanaysa shaqadii waa laga ceerinaya horta waxyaabaha ugu xunxun waxay tahay saraakiisha amniga ayaa mar walba dhinaca aan ka liidana ayay marka in la helo saraakiil professional in la helo hay'ado isla shaqaynaya ee ka go'an tahay dawlad 1 2 3 4 xasuusta xasan sheekh wuxuu dhigi jiray 1 2 3 4 amniga ayaa ah laakiin amniga iyadoonan meel la gaarin ayuu xasan maxamed cabdullaahi hadda yimid oo horena u ahay ra'iisul wasaare laga filayo wax badan amniyadana waxba weyn kama soo qaban fashila iska dhacay mar walba dhibaata isay waliba qaraxyo badan isku xigay dhibaato badan dhacday laakiin dawladdu waxaan muuqata in diyaar garow muuqan ay si jirto not only dawladda iyo xukuumadda xataa xildhibaanada sirkooda ayaa la rabaa arrin horta waddankan inuu yahay waddan dhibaato ku jira inaan aamino maahan inaan suudad wada qaadano suud la wada xirto horta waddan dhibaato ku jiraan nahay aniga waxaan qabi lahaa in macal xildhibaanada in loo labisto dharka ciidamada xildhibaanadu labistaan dawladdu labisato wuxuuna aysan afka noqon daacadnimo ah la tago furunta dagaalka meelaha jiraan nin kastoo gobolkii iyo degmadii uu ka yimid nin haysto in maanta xildhibaan ahaado waa nasiib dar horta uu ku hadlaba inuu inta yimaado uu yidhahdo xildhibaan baan ahay xildhibaan la haysto tuuladii iyo magaaladii uu matalayay horta dhibaatadan haysato micnaha ma aha dawladda iyo xukuumadda keliya wax ka sheegno horta inuu baarlamaanka laftirkiisu horta baarlamaanku muxuu yahay maxay tahay sharci dejinta sharci la dejin xaguu yaala sharci amni hadduusan jirin sharci la dejinaya meesha jiraba waa in golaha markii uran yahay iyo markan yahayba inay dawladdu horta aan anaga shacbiga Soomaaliyeed inaanan noqon raaci aan noqon inaanan maalinba nin wadan micnaha waa inaan faano halkan laga jiro xaqiiqa waxaan arkaynaa xildhibaan iyo wasiiradii armaani iyo dan hill iyo suudad oo suudku ka qaalisan yahay bullet proof la wataa dalku waa dalkan adduunka marka la dhigeysan waxa leeyahay waa trailer and poorest waxay adduunka wadda ugu baahay badan ma fahmaysaa dawlad la'aan ay ka jirto oo dawladda 7 sano dawlad la'aan iyo marxaladda aan marka fiirsay xildhibaankan wasiirkeena siday u dhaqmayaan ay nool yihiin iyo yaciga maskaxdooda ku jira hoteelay jiifaan lacag badan ay qaataan marka waa nasiib darrada haystay ka mid tahay in waxaan qabaa aniga laftirkeeda wax laga bedelo oo arrintan yaana dawladda kaliya yaanan culays la saarin xildhibaan kasta iyo wasiir kasta in amar la wada fadhin in la aado gobolada la aado nin walba gobolkiisii iyo madii uu matalayay inay wada aadaan wasiiradii isla socda xildhibaanadii isla socda in gudoomiyaha baarlamaanka u horeeyo gudoomiyaha aqalka sare ku xigo ku-xigeenadoodu ma qabo in xamar la iska fadhiyo oo maalin walba qarax la sugo casi ilaa iyo maalin walba inaan tacsiin u fadhino waa nasiib darro saan aniga qabaa kolley waa tahay markii la yidhaahdo laga hadlayo amni iyo waxyaabaha lamidka ah dabcan si guud ayaa looga wada shaqeeyaa oo waad ogsoon tahay yani kaalinta uga jiro noolaha aadanka iyo weliba caalamkaba amniguna waa shayga keliyahoo aanu isleenahay waa waxa keliyahoo ummadi ay ku horumari kartaa nololi ay ku barbaari kartaa dawladi ay ku badbaadi kartaa horumar isugu jira hadday tahay xag dhaqaale iyo hadday tahay xag maxaan ku rahday aqooneed iyo weliba teknolojiyadan caalamiga ah ee hadda laga gudbay analogii hore digitalismka ahba marka intaasoo dhanba waxaa la helaa markii nabadda la helo nabadana waxaad u moodaa maalmahan dambe in dadku laftirkooda xitaa ha noqdaan madaxda maamul goboleedyada ama siyaasiyiinta kale oo ayagu kasoo jeeda qeybaha kale oo markaasi ayagu markaasi matala federaalka iyo shacbiga laftirkiisa inta badan dadku waxay farta ku fiiqaan markaasi dawladdii oo qof walba haddii sida uu rabay oo ama qofku rabo uu ka dhex arki waayo shaanshada ama qaabku asaga u jeclaa wax inay u dhacaan oo u muuqan weyso at least sidii ay noqon weydo eedeen buu dusha kaga tuuraa dawladda oo madaxdii buu yani ka hadlaa oo maxaan ku idhahdaay weliba wax tan ku cusub maahane xitaa dawladihii hore oonu heli jirnay iyo ayay lamid tahay maxaa diiday shacbiga Soomaaliyeed aqoon-yahanada ugaasyada malaaqiyada odayaasha duubka u xiran yahay
ururada haweenka inay kala shaqeeyaan dowladda Soomaaliya nabadda iyo horumarka oo waliba si hufnaana oo hagar la'aani ay ku jirto wallahi horta waa wax loo baahan yahay dowladda horta inay noqoto dowlad shacbiga baasha hoos horta amniga sidiisa wuxuu ku in hoos laga bilaabo yani meelaha qaar wadamada aniga aan ku nool waxaa jira wax la yiraahdo 10 guriba yumba kun wax jira 10 guriba qof baa madax ka ah waxyaabaha wadamada qaarkood hadda sameeyaan hoos laga bilaabo stage hoos laga soo bilaabo degmada laan xaafadaha hoos soo bilaabo in dad daacad helo in amni hoos laga soo shaqeeyo laakiin amniga horta noqdo mid 1 2 3 4 anaga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka aan aragnaa xadaha waaweyn ayagoo dadka u sheegaya dagaalna saas baa yeelay duulaan baan qaadaynaa maracas soo xiranaya waxa la wax kale laakiin waxaas amni ma lagu abuuri karaayo amnigu waa inuu madaxweynuhu baxday maalin ra'iisul wasaarihi goli wasiirada ma qamiiska qamiis waa in daily labadii maalin bal fariista saraakiisha wali ii dhiman saraakiil wacay madaxtooyada oo macquul way dhici karaysaa laakiin waxaan meelna waxay tahay meelo shacbi la isugu yimaado waxyaabo la sheego laakiin waxba aysan ka fulin laakiin waxa aniga qoonaan lahayd in waqtiga intiisa 1 3 ilaa maalintii inay daily ay dhici karto 3 shir oo briefina oo kala qaadanayo warar xaaladda sida wax noqonay mafahanta waxaas nooma muuqdaan laakiin dawlad madaxweyne jarbo hadlay waxbuu maalin dagaal baan galeynaa afwaya loo guurayaa baa la yeelayaa wixii ku sheeka ku dhamaa darada u dambeysay madaxweyne wuxuu yidana maanta hala dhigo qoriga la qaadaya hadda waxa kala muuqata in ciidamo 28 ku ciidan loo soo maxaa keenay Soomaaliga baahan askarigeena ma haysto shahar ma fahmaysaa maalin walba waxay ku dhimanayaan yani qax dhibaato waxa iska jirta program xumaa jirta hadda dagaal la qaaday sidan ma dagaalka in gudbiis la fiiriyo roob xilli roob lagu jira wabiya biya kaliya daalan ciidamadii waa lagu dhibaato ka dhacday intay ahaataba amniga koolaba walaalkeen hadda ka hadlayo horta amnigan ka hadalno amniga inaanan muujin dawladdu waxay u muuqataa inay tahay laftirkeeda rag baa haya oo xildhibaan ah ama siyaasiyiin kale ama wax dibadda laga soo diray in la baqadirar iyo cabsi badan oo dawladdu inay shacbiga ay rabto inay ku gabaad shacbiga inay ku gambato oo shacbigu ka ilaaliyo cadowga ku soo socda laakiin taas dhibaato waa wax jira ma ahan dawladdu inay bamaado haddii la xisaabtan jiro la xisaabtamo aysan iyadu baqin ay ishore iskaan fahmaysaa raggaasna qaldayn dawladdu shacbigu way u jeedaan laakiin dawladdu ayaa waxay isku jirtaa inay is ilaaliso marka talaab hore u qaadi karto dawladdu iyadoo madaxweynaha ugu jira urdunaan nahay waan cusubnahay weli maana san qaadin mucaaradku wuu nagu badan yahay okay mucaaradadu lahan wax jira mucaaradku duu saxayna wuu sax mid wax duminaya duuyana annaga cid ma jirto mucaarado ah in wax la duubo cid ka aqbalaysa ma jirto laakiin dawladdu yaanan lagu wareegin shacbiga yaan lagu wareegin dawladdu aan aragno madaxweynihii ra'iisul wasaarihii saraakiisha weli ii dhim wasiir amni ama wasiir gaashaan oo la leeyahay furun dagaal u taagan yahay arag